فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكين بداود يال ملك استوى الدنيا كجوكتان ومركله iyo barnaamijkii dhalinyarada maanta oo aad si toos uga daawataan Africa TV4. barnaamijkan oo toddobaadle ah ayaa toddobaad kasta caaw kale aynu si toos idinku soo gudbinaa iyadoo si rogal celis aad ku daawataan marar kale. barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa toddobaadba mowduuc muhiim ah oo aynu isleenahay waa munaasab ku wanaagsan dhalinyarada in xilligan loo baahiyo. toddobaadkan waa uu marti badan yahay barnaamijka waxa igala qayb gali doona oo martida asaasiga ama ugu horeeya barnaamijka uu noqon doona mid kamid ah aqoon-yahanada iyo culimada Soomaaliyeed waa fadiilatu Sheekh Dr. Ahmed Deli oo halka fadhiya. waxa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo nagala qayb gali doona 10 kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee wax ku barata dalkan Suudaan gaar ahaan caasimadiisa Khartoum. maadooyin kala duwan ay bartaan aqoon-yahanadaasi. mowduuca barnaamijka waxa uu noqon doonaa sidee bay ku rumoobi kartaa ama ku xaqiiqoobi kartaa riyooyinkaada. waa mowduuc muhiim ah dhammaanteen waxay ila tahay waynu wada riyoonaa oo waynu fikirnaa hankeenana waa uu sareeyaa. haddaba hankaas sare sidee baynu ku xaqiijin karnaa mowduucaas ayaynu ka hadli doonaa. marka hore aan soo dhaweeyo Sheekh Dr. Ahmed Deli. soo dhawow. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله با مهد له سيي فرصة قالقة runtii aad baan uga mahad celinayaa TV-ga Kanaal 4 oo afka Soomaaliga dacwada ku faafiyo fursadan ay nasiyeen. sidoo kale dhalinyaradan aqoon-yahanka ah oo barnaamijkan ka soo qayb galay runtiina mowduucaas bal waxaan isku daynaa insha Allah wixii aan ka gaaro inaan ka niraahdo. jazakumullahu khayr. waa tahay aad baad maasantahay Sheekh. waxay la tahay mar haddii barnaamijkan dhalinyarada munaasabka ku aynu ku soo xulnay inkastoo culimadii dhalinyaradan aatay dhanka kalena dhalinyarnimadaadi weli inay aysan zuulin. وهاجاك أسود ويا دنيرة إيديكنا سود وهذا برنامج كوا برنامج كيني وبرنامج كأفكينا أم بمجعي نكوبحه وبرنامج كي دنيرة شيخ مركو هراء أنت نوج جود الجرين دنيرة أرادوا ذا يسؤالها يدوني يعني كويديان محيطها هاي ريو محيط كل مو بكرتها هذه سهر ضعة ففاين أدمجسيس. جزاك الله خير. كنتي دنيرة ولا تشعليه حتى قوليها يعني وحن شعلنا إن دبنا لخوصي اللقاء hoogaa ay iska sii taagnaato. laakiin runtii dhalinyaradu waa waqtiga ugu qiimaha badan oo qofku ku jiro. lidaalika ayaa su-aal gaara qofka aakhire laga weydiinaya can shabaabihi fiima ablaah, dhalinyaronimadiisii waxa uu kusoo dhammaystay. marka waa fatro cumrigiisa muhiim ah. haddaan usoo noqdo haddaan wax yar muqadimo ka bixiyo mowduuca riyadaadu maxay ku rumoobi kartaa. qof kasta waa riyoodaa isagoo soo jeedo riyoodaa. wuxuu ku riyoodaa wax qurux badan oo uu rabo inuu gaaro. runtii ma jiro qof ka hadlamayna midii manaamka ahayd oo qofku isagoo hurdo riyoonayay. waxaan ka hadlaynaa midda soo jeedka lagu riyoodo oo qofku sariirta markuu kor fuulo kusoo dhacda oo dariiqa markuu marayo uu ka fakero oo mar walba humuumtiisa saaran. dadku waa ka siman yihiin laakiin dadku waxay ku kala duwan yihiin see loo rumaynayaa. wax qurux badan baa halkaa yaalla oo ka horeeya. waxaas wuu habaynayaa waa qurxinayaa. qof fool xun ma jiro, qof wax fool xun ku riyoonaya ma jiro. laakiin dadna waaqica uu ku nool yahay iyo riyadaas siduu ku rumayn lahaa mucjisaad iyo isbeddelkii bikaadu hal mar dhacay iyo hal maroo la booday iyo hal maroo la tahriibay ama hal maroo wax kale la sameeyey
dhulku isbedelay lacag boorsa ah uu helay waxyaalo aan khayaaliyaad uu ku dhisaa dadna waxay ku dhisaan wax dhab ah quday dejiyaan qorshay dejiyaan qorshahaasay ku dhisaan halkaasay ku gaaraan marka haddaad ii ogolaato waxaan wax yar ka dhihi lahaa maxaa lagu riyoodaa kow iyo maxaa furayaal u ah si aan bal fikradda dhalinyarada u isaarayno si kooban qofku wuxuu ku riyoodaa oo ugu weyn makaana marmuuqa fi lmujtamac qofku mujtamaca uu ku dhex jiro adduunka intuu noolya inuu meel sare ka gaaro maal ha ahaato shuhro ha ahaato ama caannimo haddaan soomaali ku nidhaahno ha noqoto xoolo ha noqoto haddii ilaahay kuu roon yahay cilmi qofku inuu mujtamacusa u fiiriyo oo yidhaha war qofkaasi waa calam dadku way jecel yihiin inay gaaraan waxay jecel yihiin inay gaaraan usra raaqiya gabadhu waxay ku fakeraysaa wiil wasiim ah oo nooc kale ah oo si maaragtay muuqaalkiisu yahay oo si xoolihiisu yihiin oo si qabiilkiisu yahay oo aan la aragoo la maqal wiilku sidoo kale gabadh buu ku fakerayaa la mid ah qof xun iyo usro xun ku fakerayaa ma jiro waxyaalaha lagu fakeraya waxaa ka mid ah wadiifa mutamayisa qofku inuu helo shaqo fiican oo mushaarkeedu maasha allah rasaysan yahay oo adduunka saan yahay oo waxaa lagu fakerayaa butuulaad qofku in laga sheekeeyo oo taariikha uu dhigo wuxuu ku fakerayaa janno qof xataa cadaab rabaa ma jiro soo maha fi nihaaya inuu jannada ku dambeeyana waa rabaa marka axlaamtu noocaas weeye inaha ugu badan daa'iman axlaam wanaagsan baa muuqata sheekh intaad furaha gelin ma laga yaabo qofka in mararka qaar riyooyin murug ama dhibaatooyin noocaas maskaxdiisa ku samaaxad waa laga yaabaa dadku way leeyihiin dad shaad ah mid baa wuxuu ku fakerayaa inuu wax dictaatoreeyo reer hebel inuu laayo maanta hadduu adduunka meel gaaray hadduu qole heblo oo baaba'day hadduu arki lahaa qoble heblo qolyaha marka inaa isaaraynama waxaan rabnaa axlaamta wanaagsan dadka shaadka ma rabna riyadooda inaan boonboonino warbaahinta ka sheegno waxaan rabnaa dadka sawiga ah iyo dadka fiican runtii wayna jiraan riyooyin xunxun dad si xun u fakera oo meesha sidaa loo fakerayo si kale u fakeraya asaga wuxuu jeclaan lahaa qole heble inay baaba'do hebel oo hadda xoola haystaa inuu dhulka galo isagoo inuu hebel dilo laa samaxallah waxyaalahaas marka waxaas ma rabna caawa inay sheekadayadu noqoto insha allah waxaan rajeynaya dhalinyarada iyo taaradayada iyo wada sheekaysiga iyagu ay noqoto ijaabi wanaagsan waa tahay riyooyinkaasi ama ha wanaagsanaadeen ama kuwii shaadka ha ahaadeen ma laa iraadiya mase qofka asiga iska dhaadhiciyo inuu ku riyoodo wax wanaagsan mase waa wax iska yimaado qofka ma xukumi karo dabcan way ku fiicnaan lahay dadka takhasuska iyo cilmi nafsiga iyo yaqaan inay ku fakeraan ka hadlaan laakiin annaga intaan naqaan dadku way u badan tahay waa lagu kala badan yihiin dad baa dariiqa hadday marayaan hadday jiifaan hadday soo jeedaan dadka shaqada yar oo mashquulka yar iyo laakiin dad badan markay mashquul mar walba qofna kama zuulayo inuu yeesho fatro uu xulumka ku jiro nin baa waxaa laga sheegaya soomaaliya hadhadlay baa le markaasu war dadkao dhan waa isla sheekaystaan oo waa isla riyoodaane anugu waan isla murmay oo wixii baan kor usoo dhigay hadalkii unbaa ii dheer waa tahay furooyinka haddaa u galno runtii furayaashu way badnaan karaan laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa waxyaalaha muhiimka ah si hadhowna niqaashka loogu dhiso qofka horta inuu ixsaaso dabcan hadda dhalinyaraan ka hadlaynaa furayaasha waxaa ka mid a inuu ixsaaso fatrada uu ku jiro inay muhiim tahay fatrada 30 sano wixii ka yar dadka qaar 35 gaarsiinayana waa arkay 30 sano wixii ka yar inuu qofku u ictibaariyo isticdaadka uu sameeyo iyo makhzuunka dadaalka uu sameeyo inay muhiim tahay fatradan si uu xulumka u gaaro haddaan ixsaaskaasi ku jirin wuu iska dayacayaa waa iska kala furure laakiin aham xaaja
intuu gelin kara inuu geliyo. waxaa laga yaaba dadka qaar xitaa si buufis oo kale inay isku qanciyaan adiga intaanaad kugu filan ama intaana ku mashquulsan tahay. waxaa la sheegaa nin macalin jaamacadeed oo dhalinyarada inta aada ugu booriyey war wax badan qabta oo wax badan isdiyaariyay waxay yidhaahdeen waa mashquulsannahay intaanaaba naga badan. sax marka wuxuu soo qaadaa la yidhi kiish wuxuu yidhi igu soo gura dhagax waa la buuxiyey wuxuu yidhi bas miyaa warkaasaa la waa bas ciid soo qaadaa la yidhi ciiddii waa lagu shubo yani kiishka ciiddiibu wuu qaaday ciid badan baa la gashay gudaha ma buuxaa baa le markaasaa bas wax damba uma dhima biyo ii keeni biyo ku shubo. marka qofku hadduu daaqaadkiisa ama awoodihiisao dhan ka faa'iideeyo fatradaas oo ihtimaam badan geliyo hadhow baan aada u sharaxi doonaa waxaa laga yaabaa inay najaax waxaa kaloo ka mida haddii ilaahay kuu ron yahay furayaasha asilatu billaah waa furo weyn maxaa yeele cidda wax waafajinaysa oo najaaxan ku siinaysa waa allah subxaana watacaala mahma aad ku xiran tahay oo silaad la leedahay oo awooddaa rabbaaniga aad kuu daraynaysid inay ilaahay wax kuugu fududeeyo waxay ka mid tahay furayaasha. waxaa ka mid ah iqtinaamu lfuras furaska qofku inuu ka faa'iideeyo opportunity-ga ama fursadda qofku uu haysto inuu ka faa'iideeyo midda firaaqada midda dhaqaalaha midda caafimaadka daraasal jaamiciyuu ku jiraa wax badan buu kasban karaa. fatradaas furaska oo laga faa'iideeyo waxay ka mid yihiin mafaatiixu nijaax ama furayaasha guusha. waxaa ka mid ah aqoonta cilmiga qofku inuu isku dayo qadri min alimkaan fatrada ogaadana anigu dee ardayna waan soo ahaan jiray haddana nin weyn baan ahay wax weyn ma korursado hadda mana i suurtagal aha inaan korursado laakiin qofka waxaa asal ah fatrada dhalinyarada wixii uu barto waa tadarub tababarasho yani fatrada uu dhalinyarada yahay qofku inuu hadalkaas hadda aan hadlayo hadduusan ku tababaran hadhow markuu weynaado way adkaani odayaalna cid fursad tababar siinaysaa waa yar tahay wax kasta tababaray u baahan waxaa laga yaabaa combyuutarka maanta ugu horeysa in xataa gacanta kuu qaban weydo mouska maxaa maqan awood badan uma baahan waxaa maqan tababar baa u baahan mahaaro qofku inuu yeesho tababarto. waxaa ka mid a tartiib alawaliyaat maanta waxaan ku jiraa waxbarasho maalan jaamacad maanta waxaan ku jiraa haddii ilaahay ku shaqo maanta waxaan ku jiraa hawshaas laakiin haddii waraaqihii o dhan isaga ka khaldamaa مثلا qof baaba ثانويga markuu bilaabo shukaansi buu iska galayaaba sax inuu guursado way fiicantahay laakiin ma rabo inuu guursado wax uu diyaar u ahayn buu rabo inuu maanta dhan ku mashquulsana gabdhuhu chatting kula jira hawl buu ku talagalkuna wuxuu rabaa inuu 30 jir ku guursado gabdhahana wuxuu rabaa inuu ku dhex labnaado yani waxay ka mid tahay khalqul awraad awraaq marka la yiraahdo waraaqaha la isku khaldo tusaalaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay dhalinyaradu galaa خلاص هذا ديارته قرص هذا ديار هاي وكذا بابك اسكحر هموم تيسا iyo مشاكلاتkiisa iyo shahwadiisa iyo dareenkiisa iyo jacaylkiisa iyo balaayo hawlo badan buu wataa hawlihiisa oo dhan iska xir hada diyaartay guurso waxa ka mid tahay hal mid oo tartiib alawliyaat tusaale ah wuduux alhadaf qofku wax inuu cabirto waxa inay u cad yihiin inuu u socdo furayaasha ka mid tahay waxa ka mid ah tarkiis qofku ibni aadan waay waqtigiisuna waa kooban yahay inuu meel horta ku tuuqsado ragso meel shaqo ama aqoon inuu meel aada u rakiso meelaha kalena uusan ka maraan qolada dalabada tulcilmuna aad bay u sheegaan guusha inaan lagu xirin meelaha ciriiri ah waxay ka mid tahay furayaasha najaxa maalan guushayda o dhan waxaan ku xiray inaan lacag helo absad tusaale مليونير إن أنا قضاء وأقولست هدانا نقول وافشل ساس أدنيست ولو بسط الله رزق لعباده ما بعد عذابه ضدك برسنتج مساحة لها شه ووحكوبا فرياشة وحكم إذا أنا هذا غف ونكفق هذا أولي قلنا غف إيجابي وهو خدمة المجتمع هم الأمة أمض أفكره وحكم إنتهى ضدك نوع أفكره وأنا أراني أهين محان هليا محان فائدة قبلك محان هليا أنا محان هلي ضدك سيدا أفكر واحد بدي إنسان تجربة كو أرقني إني فشل ما أما إذا نجاح بدل وسو قضبك وجوك وما وجود بيوحى وإيه إتقان العمل
muasasu ka shaqeeyaa meeluu ka shaqo bilaabay kasbu hiqa inuu sameeyo shaqada gelinka hore oo shaqada uu bilaabo gelin labaad ku daro ibdaacaad sameeyo hal abuur sameeyo laakiin maantuu meel yar shaqo ka bilaabo nin dhalinyaro meeshan macallin baa ka tahay hadduu yidhaha alla maanta o dhan jeesadaasaan haystay saaka ma quracan ciyaalkaasa maanta o dhan igu qaylinaya $100 ay isiiyeen see bay isku keenaysaa aye iska tartiibsan marka adiga xoogaa dadka adiga maaragta meeshan isku dhibin bas tallaabo dib isaga qaad xoogaa saasuu shaqadii ku bilaabo sanad markuu waday baa qoladii idaaradii waxay nin kuma aana bogin sibaa adigana adoo dhan sibaa isugu mashquulsan tahay iska soco meel kaluu tagay waxbuu isku miisaamay laakiin meeshuu tagaba hadduu xawli ku galo shaqada loo dira laba laab ka dhigo dadka kasbado calaaqaad samaysto meel walba waa la toogaya ilaa uu najax uma yani sida lagu arkay dadka lagu yaqaan waa inahaasaan maaragtay ku isaareyn lahaa dhalinyarada runtii aad baan ugu mahadsantahay jazakumullah sidoo kale aad baad mahadsan tahay sheekh doctor axmed dheyle ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhalinyarada ayaa daawanaysaan Africa TV4na waad kala socotaan markan waxaa u gudbayaa dhalinyarada barnaamijka ka qayb galaysa wixii fikri aaraa ah ama su'aal ay qabaan sheekh cabdilfataax yuusuf ayaa ku horeyn doona oo aan siin doonaa haddii fikrad iyo ra'yi uu qabo ama haddii uu su-aal weydiinayo doctor axmed kadibna 3-4 su-aal ku jamcin doonaa markaas usoo gudbin doonaa sheekha hay sheekh soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala marka xigta waxaan u mahad celinayaa qanaat Africa TV4 qaybtiisa luqadda Soomaaliga fursadan qaaliga ay caaw noo suura galiyay sidoo kale sheekhana Sheekh Axmed Dheeli iyo aqoon-yahanka kale ee ku sugan goobta sheekhu masalooyin badan ayuu taabtay furayaal badan uu ka hadlay mawduuca uu daadegay kaliya taanigu hal mudaakhalo iyo hal su'aal ayaan ku mushaarakayn doonaa kulley isana wada ogsoonahay qof kastiba wuxuu leeyahay gool ama hadaf u calaamadsan ama uu rabo inuu gaadho sheekhu wuxuu ka dhawaajiyay qodobo badan oo fura u noqonaya haddaba waxa isweydiin leh qofka yacni qodobada faraha badan ee uu ku gaadhayo hadafkiisa caqabad ma ka hor iman karaan ama wax hor istaagaya yacni waynu dareemi karnaa camal kastoo la qabanaya wuxuu leeyahay caqaba yacni marka doonaysa inaad meel gaadhid idan waxyaalaha ka hor imanaya ama ha weynaadaan ama ha yaryaraadaane sid uga gudbi karaysaa caqabadda halkaad idan waxaa ka soo baxaysa inaanu qofkii uu adeegsado la astaslim inaanu isdhiibin qofkii yacni haddii uu isdhiibo waxaa imanaysa inaanu hadafkiisii aanu xaqiijin idan markaa inaanu qofkii aanu isdhiibin si uu maxaa hadafkiisii uu u gaadho badanaaba waxaa lagu yaqaana dadka isdhiiba inay ku mashquulaan qof kale hadafkiisii oo uu xaqiijiyo yacni ama sheekh ha noqdo ama muxuu ahaye qof lacag le ha noqdo yacni qof hadafkiisii gaadhay ayuu muxuu ahaye qofkii caqabaadka yaryaraa ka gudbi waayey uu isku daya inuu ku mashquulo su-aasha labaad su-aasha labaad waxay tahay idaafiga ya taas waxay ahayd miya idaafada yani qofku inuu haddii caqabad ay ka hor timaado inuu ama waaweyn hadafkiisa ka hortaagan inaanu isdhiibin inuu muxuu ahaye ku sabro oo joogteeyo siduu uga gudbi lahaa si hadafkiisa u xaqiijiyo su-aasheedu waxay tahay dadkii hore ama muxuu ahaayey taabiciyiintii ama muxuu ahaye quruntii hore waxaan wada ogsoonahay imkaaniyaadkan badan ama waxyaalahan suuro gelinaya qofkii cilmigii uu barto ama uu hadafkiisii uu si sahlan la odhan karo inuu u gaadho may jirin yani waxaynu dareemi karnaa qof doonaya cilmi inuu safrayay bil ama muxuu ahaayey hal xadiis isagoo raba oo taxqiijinaya saynu qisooyinka aynu wada aragnay waaxid min al-aima isagoo raba inuu hal xadiis uu taxqiijiyo ayuu u baarayaa 40,000 oo warqadood ama maktabad habeenaya maalin uu gelayaa uu u soo jeedayaa marka waxaynu odhan karnaa imkaaniyaadkiioo yaraa ayaa muxuu ahaye haddana himadii iyo halkii uu qoontaysnayd ay gaadhayeen innagana bilcaks yacni qaliil imkaaniyaadkiioo fara badan oo imaka wax kastood u baahatid anigoon halkaa ka kicin ayaan helayaa kitaabkii deenadkiioo mutawafira haddana waxaa laga yaabaa in ay wakti badan ay qaadato saynu u gaadhi lahayn muxuu ahayey
ahdaaftii idan markaa sheekh waxaan weydiinayaa farqiga ku taxliilin kartaa waa mahadsantahay waxaa siin doonaa aqoon-yahanka xiga ee asna tacliiqa ku darsan doona ustaad cabdinaasir shariif ayaa siin doona waxaa idinka codsanayaa barnaamijka su-aasha iyo mudaakalada daqiiqada inay kusoo koobtaan si dhammaan dhalinyarada ay u mushaarakeeyaan barnaamijka soo dhowo aad mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa qanaadfo nagu martiqaaday barnaamijkan shukran sidoo kale waxaan salaamaya asxaabta nagala soo qabiisha dhammaan oo aniga aan ka mid ahay waxaan ku biirin lahaa waxaa jira hadaf iyo xulum macnihii riyo iyo wax iyo qofka yool u ah ama han uu rabo qofka inuu gaaro waxay ku tilmaamaan waxay dhahaan hadafun bilaa majhuud yusaawi xulm macnihii hadaf aanan juhdi ama dadaal aanan lagu bixinin wuxuu la mid yahay riyo aanan waxba aanan ahayn dee qof riyoodoo kale sidoo kale majhuudun bilaa hadaf macnaha juhdi aanan hadaf lahayn ama himila iyo han qofka uu tiigsanayo aan lahayn wuxuu la mid diyaacu waqti qofkii waqtiga luminayo saa darteeda marar badan waxaad arkaysaa qof dadaalayo laakiin wuxuu ku dadaalayo aanan wax kale uusan ahayn ilaa diyaacu waqti inuu lumiyo maahine sidoo kale qof aanan dadaalaynin laakiin riyo iska riyoonayo isagana wuxuu gaarayo ma laha hadafka markaa waxaa jira shuruud taxqiiq alahdaaf macnaha inaad hadafkaada xaqiijiso shuruud u taallaa jirtaa shuruudda ayaan rabaa inaan xoogaa xeer aan ka taabto daqiiqadooda waa kasii gudbaysaa laakiin soo koob aan soo koobaya insha allah si saaxiibada wax uga siisid waan soo koobayaa shuruudda u taallo qofka inuu hadafkiisa xaqiijiyo waa inuu horta hadafka muxadad yahay hadaf go-an tusaale ahaan oo kale qofka inuu uu dhaho macnihii waxaan gaarayaa طبي درجة دكتوران كبحيا إنه حدد قفك اختار نقول كل مرة ولكن وإنه قفك لها درجة جامعية أو دكتورة أيان ربعنا كخرجوا لو حاويان واضح وإنه يهي هدفك وإنه واضح وهذا سدح وإنه قابل للقياس واحد قياس كرو واحد عكر وإنه يهي واقع وإنه يهي طموحنا وإنه جرى قفك هن وجهدك أما دال وكب حنينا وإنه لهذا وقتي وقامنا وجيه وصاق وما سنتها شكرا مداخلة يوها يا حقي دونا أو أنسين دونا سي فكرة وجود رصده عباس حقة سودو عباس بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan rabaa inaan mahad celiyo qanaadka TV-ga African 4 wariyaha barnaamijka nagu casuumay Cabdikaamil Yuusuf Maxamuud shukran aad ma santahay sheekh laftirkiisa aan caaw wax badan aan ka faa'iidnay sheekh Axmed ustaadku salaamay dhalinyarada sideedoo kale aadka u daada yar studio ku sugan isla markaana barnaamijka martida ku ah iyo intana daawanayso sideedoo kale oo dhalinyarada anigu mar rabo su'aalo laakiin waxaan rabaa mudaakhalo yar ama xogaa yar oo comment ama tacliiq inaan saaro sheekh hadalkiisa okay marka waxaan rabay inaan ku darsado hadallo yar oo tacliiq ah wadaadka intuu sheegay ah horta mawduuca laga hadlayo waa mawduuc dhalinyarada xitaa hadda barnaamijka lagu casuumay aad u wada anfacay nin walba sababtoo haddii inteena midna loo weydiiyey qof walba wuxuu haminayo way kala duwanaan kartaa dhinaca ganacsaduu rabaa inuu noqdo nin wuxuu rabaa inuu noqdo madaxweyne nin wuxuu rabaa inuu noqdo dictator ninba si uu fikira dadku isku mid maahan aniga waxaan rabaa bis inaan ku darsado hadalka anoon dheereynin zamankan raba inaan uga faa'iideeyo walaalahayga in mafaatiixda ama guulaha himilooyinka uu ku daro ama aan ku darno sheekha intuu sheegay marka laga tago qofka laftirkiisa inuu leeyahay khudba bedel tusaalahaan kale marka hore hadduu ku fikirayo inuu madaxweyne noqdo hadduu waayo kale ifan qodobka labaad uu is dhihi karo waa buuxin karaa qorshahaas inuu ku daro oo khudba bedel uu degsado si adhowdaas laftirkiisa khalal oo nafsi uu isugu dhicin oo isla wareerin midda kale aan rabo waxay tahay inta badan waxaana intaas in ka badanba ay sheegaan dadka asaatidaha oo aan waxna baray oo weliba macallimiintii jaamacadda ay noo sheegeen daraasad la sameeyey in la ogaaday inta badan dadka himadooda caaliga ah inay bartaan culumta la yiraahdo artiska ama kulliyadaha artiska ay ka baxeen inta badan ay science ahayn
marka taasna waxaa caddeyn waa waaqiciga aan hadda ku nool lahay madaxda dalal walba markaad dib u fiirisid nin ka baxay culumta sayniska waa ku yaryahay oo madaxweyne ka noqdo waxaana laga yaabaa inay jiraan aan hordhicin hadalkayga laakiin mostaliga waxay u badan yihiin dadka artiska waxaana aaminsanahay intayna meesha fadhida dhalinyarada oo anigaba aan ka mid ahay artiska kuliyadaha aan dhiganaa himooyinka waxaan jecelnahay in dadkan sidii lagu badbaadi lahaa aan si wadajir ugu wada fikirno tan koowaadna ay noqoto horta cabsida ilaahay oo alla aan lagaa xiginba in ilaahay aad noqotid qof ku xiran mar walba si himooyinkaaga adduunyada ah aada uga hormarisid tan aakhiro oo ah meesha ugu dambeysa loo wada socdo si kastoo lacag u yeelatid si kastoo madax u noqotid labadii qabri oo taakada ahaa labada taaka ee qabriga ku sugayo marka waxaa la rabaa qofka himadiisa laftirkeeda adduunyo keligeed inaysan noqonne aakhiradan lagu daro waan idiin mahadcelinaa shaaqana si gooni ah u salaama maadaama aan wax badan ka faa'iidnaa waa tahay waa mahadsantahay sidoo kale cabaas maxamed nuur ayuu ahaa yaa xigi doona aan siin doonaa markana fikir ama su-aal haddii aad ku darsanaysaan waa tahay dhalinyaradu waxay u diyaar garoobayaan su-aal iyo fikir intaba haddii ay ku darsan lahayn bal sheekaasi iyo daqiiqad ama labo su-aashii uu weydiiyey cabdifataax yuusuf xirsi ee ahayd dadkii hore imkaaniyaadkoodu waa uu yaraa haddana waxay ahaayeen kuwo xaqiijiya xulumkooda ama ahdaaftooda annaguna imkaaniyaadkeenu waa uu badan yahay laakiin waa ay yar tahay inaanu xaqiijino ahdaafta ama xulumka aynu leenahay sheekh su-aashaas jawaabteeda kusoo dhowo jazaak allahu khayr wuu mahadsan yahay ustaad ama sheekh cabdifataax waa arrin mudan mar walba in la isweydiiyo waxay kaloo arrintaasi runtii jawaab u tahay dadka hadda waxaa aada looga dhaadhiciyey ama iska dhaadhiciyeen dhib baana haysta waa mushkilad baana haysata wax ma qabsan karo culays baana saaran qola xagga ka timid hawshaas caqabadaa jira marka runtii dadkaas hadda sheekhu sheegay oo qudamadaha oo juhdigaa badan iyo caqabadaha badan haysteen annagana maanta aan caqabadana haysan horta kow waa imtixaan qof kasta inta uu fursad haysto oo nicmo ilaahay siiyey buu ku imtixaamaya haddaa ka faa'iideyn weyday yani ninkii dameerka ku safraayey oo soomaaliya oo kale hadda annago hadda suudaan aan joognaa soomaaliya markaan u safrayna waxaan ku fakeraynaa diyaarad dhowr saacadoodna sii wado asna dameeru ku safraayey rati hadduu masaafadaasoo kale galaayo 3-4 bilood ku fakeraya inuu sii socdo marka aakhirana waa nala kulminayaa hada yowm lfasli jamacnaakum walawaliin isku saf baan la soo gelinaya asagu muxuu xaqiijiyey adigu maxaad xaqiijis mobilaa haysataa caalamkii oo dhan baad fursad u haysataa kilig yar ama howlo yar inaad dacwo ku gaarsiisid diin ku gaarsiisid khayr ugu sheegtid shar uga hortagtid maxaad uga faa'iidaysa asagu muxuu haystay wasiilatu litisaal nin warqad jildiga wax loogu qoro ama laf ah oo la yidhaahdo orod faras dheereeyo qaado ama orod 7 beri 20 beri magaalo hebla ku tag saasaa itisaalku ahaa marka ana waxaan isleeyahay kulley qolada cilmi nafsiga aad bay uga hadlaan waxay ku leeyihiin insaanku inkastoo uu wax tabaayo dadaalkiisu waa badan yahay mar kastoo isleeyahay waa kuu jaahis hadda arday baa tiin waad garanaysaa haddaa isleedahay maadadan mudakaro kama helaysid oo waxba kama helaysid oo shaah kama helaysid qalin iyo buuga u fariisanaysaa 7 beri baa fadhiyaysaa waa khulaasaynaysaa waa qoraysaa waa xafidaysaa laakiin haddaa ogtahay meel inay kugu jirto mudakaradii ama iyadiioo softii aada heshid sheegadaada dhiganaysaa waxaa leedahay maalin hebla maanta imtixaan ka hor aada xoogaa soo bixin doontaa suhuulada laftigoodu say nicmo u tahay uma wada khayr badna kolley furuuqdaasi way jirtaa laakiin masaladaas meesha muhiimka ay ka tahay waxa weeye inaan nicmadaas aanu haysano aanu imtixaan ku nahay oo ninkii dameerka fursadda ku xaqiijiyey iyo maanta ninka waxaan haystaa aakhire ay saf soo geli doonaan wallahu aclam aad baad mahadsan tahay doctor axmed deyl ayuu kaasi ahaa dhalinyarada aynu mar kale usoo laabanaynaa iyo haddii ay fikir iyo araa ay ku darsan lahaayeen soo dhawaada barnaamijku idiin furan yahay maxamed ciise koona saxafiyiintu ka mid yahay khartuum wax ku bartay soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي وسلامتين الشيخ محمد الشيخ أحمد الشيخ أحمد ديل صح؟ دكتور كأدو الماسية عاو وحوا فإذا بدنا كهلني وعكرا أمام بدن تلفزيون كانال 4 أفريقيا TV 4 شكرا أنا جو واحد جعلها شيخ إن لو سؤال ويديو أنا جو الرولي بقى
maadaama laga hadlayo riyo riyadiisan ku gaari lahayn ah sheekh waxa uu yidhi dhalinyarada yani xilligan jirto aad yani waxay ayagu yani wax guursanin waxaa laga yaabaa markaasna awoodin inay xoogaa ku mashquuleen haddii marka yani ku mashquuleen haddii ay awoodaan way guursadaan haddii awoodi waayaanna macnaha waqti isaga lumiyaan marka xulumka waxaaba ka mid ah dhalinyarada in yani waqtigaas la gelinayaba xulumka ka mid ah si targetka loo gaaro qof looga helo dadkaas marka sheekh marka xulumka noocaas ah ma la dhihi karaa macnaha ma la jooji karaa si macnaha markii aad ka soo dhamaato jaamacaddii oo kale qofka meesha uga hesho mise waqtigu kaa khasaara waxaa lagaa rabaa isla markaasna ka faa'iidaysto yani xulumkaas ma laga miro dhalin karaa oo xulum ma loo qaadan karaa in wax la shukaansado okay dabcan waa inuu fahmo amarana sheekh waadix midda kale aan qabo waxay tahay qof walba wuxuu leeyahay xulum uu leeyahay dhalinyaraa leeyahay weliba qof walba Soomaali maanta hadaa weydiisid wuxuu jecel yahay boqorada adduunka in qof guursado jecel yahay qof wuxuu jecel yahay sida Cabbaas sheeg madaxweyne noqdo madaxtinimada Soomaaliland hadda ninka ugu yar lacagta ku galashay waxay noqotay $1 million ay noqotay madaxweyne noqdaan rabaan marka maadaama lacagtina ay sii qaal noqotay sideen ku xaqiijin karaa hadafkaas maadaama xoogaa hadda weli aan waxba lahayn santahay yaa fikir iyo ra'yi su'aal ku darsan doona ustaad Cabdallah soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim aad ayuu mahadsan African TV Canal 4 sheekh Cabdikaamil oo nagu casuumay barnaamijka haddaan sheekh weydiiyo su'aasheeda xulumku badan yahay waxaana ka mid ah jannadana waa xulum mid ugu weyn oo qaalisan taasna waxa lagu gaari karaa marka loo qaato kuna qaato adeeg rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka uu soo laabana riyadaha kale sidee lagu gaari karaa riyadaha kale oo caadiga adduunyada ku kooban intaasaan kusoo gabayna soo leeyahay waa fikrad iyo ra'yi oo aad beeriso ma وتوماسات وسؤال سيدي كوغاري كرا حلمكي ريداس waxay la tahay horena ugu dhawaajiyay doctorka haddana insha Allah taala uu ku kormari doonaa oo waxbuu kaaga taaban doonaa yaa kale wax ku beerinaya Axmed Saahid soo dhaw waa tahay waa maasan tahay ashtax oday okay waxay ila tahay in si fiican barnaamijka uu noogu socdo si habsami leh qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waynu soo gaarnay sheekh 3 su'aal ayaa halkan ku taala من هل دقيقة أنا كسو كوبتين أدم جعلها تنقوه الرئيس وحيد إن أوقات كرنا حلمك إن إكمل هاي إن إنه دلني يرينا أو إنه شو كان سي عم بوح سمينه سي ودم بين إنه أوجارنا كاس لشو كاس رح يلعب إنه وصلنا يسأش حكتي أهد مدحويني ما كوهمينا يا وحلم سيدك وحقيقين كرا سؤال شو قدام بيسي أحلامتنا سيدك وحقيقين كرنا قدام بسم الله الرحمن الرحيم runtii aad ugu mahadsan yahay walaalaha su'aashaas hore oo ku saabsan see wax uga raadsanaa gabdhaha wax dabcan ani markii gabdhaha wiilasha kaliya lama hadlayna gabdhaha iyo wiilasha labadaba waa la hadlayay wayna ku kala duwan yihiin mawduuca runtii horeba waataan sheegay qof kasta oo dhalin yar wuxuu ku fakarayaa شريكة الحياة هدو ويلي هاي واي هدو قبل هاي شريك الحياة قرا عرب ساسي دهان أما قف كي نلاش اللي وده أجد صحيح رايح حسيالنا وكله في الشيخ ها يقول لي يرى ساسوي مركان كهذا اللي بانو مرين هذا الكحسوق اللي ترتيب الأوليات إن قفكو وحكلا نظام صدو وصو وراقها اسكو خالدين بان تصالي qaatay maxaa yeelay qofku hadduu wax kala nadaamsan oo hadba hawsha marka uu hayo uu ka bixin oo si fiican meel u dhigin waxaa ku dhacaysa inuusan meel la guul ka keenin qodobka ah waxaan hawshan gabdhaha waxaan ugu dhex rafanayaa anoo weliba hadda diyaar ahayn haddaan wiilasha xaggooda ka hadlo inaan gabadhii mustaqbalka ka dhex helaan rabaa waa waxyaalaha aada dadka isugu qanciya waxyaalaha kaloo mubarirka u ah waxaa ka mid ah uusan walaal la sheegin idaarada laftigeedaan baranaya sida wax loo shukaansado iyo arrinta sida loo dhex galo iyo haddaan iska sugo oo aan idhaahdo ilaa aad 25 gaarto ama 30 gaarto sug hadhow meelaan ka bilaabo garanaa khaliini atadarab bilmawduuc yani saas oo kale iyo tarwiixaan ka rabaa xoogaa walaga yaabo haddaad nin dhalinyaro hadda caawa meel wada degtaan مثلا ragga odayaasha markaan dhalinyarada iyo meel wada degno oo dhan waxaa socda
jaatin ama waxbaad u maqlaysa sharqan waqti dambe ilaa nin saaxiibkay igu yiri ayaan meel la degay 8 dumaraan hadda idaareeyaa buu yiri 8 mawaaciid aan kala sameeyaa waxaan kala waxeeyaa marka wax kasta walaalaha waxaan dhihi lahaa mushaahidiintan daawanayaba wax kasta meel yaroo faa'iida way leeyihiin shay kasta jaanib yaroo faa'iida uu leeyahay laakiin laguma dhiso meesha yarta faa'iidada waxaa lagu dhisaa keebaa badan mashaakilkiisa iyo faa'iidadiisa shareecada oo dhan saasay ku dhisanta يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ساسا لغو حرم وإثمهما أكبر من نفعهما marka haddaan u fiirsanno mashaakilaatka ka ratibma hawshaas qof aan diyaar ahayn horta waxaan ku bishaaraynaynaa markuu diyaar garoobo gabadhii ficneeda uga joogta markaas mid waxaa laga yaabaa markaas aadan hadda midaan hadda aad ku mashquulsanta waxaa laga yaabaa inay xoogaa expire ba noqoto oo laga fiicnaadaa laga yaaba xilligaas oo kuwo kaloo hadda foodleeye ah oo saanawiyada iyo ku jira ay xilligaas zamaamka hoggaanka qabtaan horta taas ogaada waxaan kaloo leenahay xiriirka u dhexeeya ninka iyo dumarku ama ragga iyo dumarku ma noqdo xiriir caadi ah yu-ahir qofka waa saameynaya wuu maxaansanaya qof shahwadiisii baa kacaysa dareenaa gelaya markii dareen kaco meeshii rasmiga ahdo ilaahay ugu talagalay oo lagu faaruqin lahaayo qof ku nafisi lahaana aysan diyaar ahayn maxaa imaan kara mashaakilaad badan oo ay ugu hooseyso qofku inuu iska dhibaatoodo oo caawdhan iska galgasho soo saas maaha mushkiladaasaa ugu yar hadduusan mushkilada kaleba gelinba ka waaweyn soo maaha waxaa kaloo imaan kara calaaqadaha ka imaan kara gabadha laftigeeda gabdha waxaa la sheegay say wiilal jacayl ula matalayeen niman kale la siiyey hiya zawja lirajul wa mutacalliqa liaakhar soo mina garan waa musiibo weyn marka masalada waxay u baahanta xoogaa faahfaahin dheer u baahanta qad waa ka badan tahay laakiin waxaan kusoo ururin lahaa mushkiladda qofka guurka aan u diyaar ahayn uu galo shukaansi way ka badan tahay faa'iidadeeda intaas kusoo koobaya su-aashiisa xigtay su-aasha xigta xilmiga waxuu doonaya in madaxweyne oo noqdo sidee buu ku gaari karaa runtii waxaa laga yaabaa hadda inuu ku qiyaasay wadciga hadda taagan dowrka qofku haysu diyaariyo ummadda inuu hogaamiyo waa wax xulum oo imaan kara oo dhalinyarada qeybo badan geli kara laakiin hadduu ku jaangooyo waxa hadda socda wuu ku dhibtoonaya soo mayna garan waxa hadda socda masalan hadda waxaa laga yaabaa hadda wuxuu ka dhawaajiyey in wax qaaliyoobeen corruption jiro mashaakil jiro rubamaa in ilaahay faraj furo oo xilliga uu asagu diyaarka yahay wax kala yimaadaan ragga hadda madaxda ah oo waddanka hogaamiya markay dhalinta yaraayeen dowlad soomaaliyeedaaba dhisnaydba soo maa si kaley ahayd qofna kuma fakerayn 85 86 anwaaba joogayba sida hadda waxay yihiin in wax noqon doonaa marka waxay ka mid tahay waxaan dhihi lahaa isdiyaari furayaashii kaloo guusha qaado aynu ka hadli doono hana isku jaangooynin wax hadda socda oo yeysa ku welgoolinin reer hebel ma tihid hadda reer hebel bay bahasha ku xirantahay soomaa mashaakilaadkay ka mid tahay oo ka daranba lacagta dad baa madaxnimadii waxay uga xiran tahay qabiil soo maha dad ay lacag uga xiran tahay waxaa laga yaabaa in ilaahay wax furfuro marka taasna saasaan uga jawaabi lahaa isdiyaari hadda ha ku dhisin waxa hadda socda waaqaca intaasaan dhihi lahaa ama su-aasha ugu dambeysa oo ah sideen wax ku xaqiijin karaa dee waata darsiga iyagoo dhanba uu ku wareegayo waxaan wax ku xaqiijin karaa qodobadii aan ka hadlay inaan tarkiis ka saaro runtii qodob buu sheekh cabdifataax mulaxday muhiim ah caqabaadka waanan markii hore taaban caqabaadku waxay u baahan tahay muxaawala bacda muxaawala oo carabi baan de hadda ku hadlaynaa waddan carabeed baan u badannahay qofku inuu mar walba wixii isku dayo dadka qaar hadda aada uga hadla waxay leeyihiin xayawaanku qaybo badan baa u baahan in lagu daydo matalan bahashan quraanjada oo kale
haddaad mararka qaarkood u fiirsataan meel bay koray way ka soo dhaceen way ku noqone marna quusan mayso marna dhihi mayso meeshaan waad ka soo dhacday ilaa ay ka gudubto marka dambe caqabaadkan waxaa rabaa in sidaa loola macaamilo wallahu aclam aad baad mahadsanta sheekh barnaamijkeeni gabagabadiisa ayaa lasoo gaara su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo oo aan kula kaftamo weliba sheekh xulumka inta badan dhallinyarada ayuu ku jaan go-an yahay marka dadku weynaadaan da-dooda ay gaaraan xulumka ma leeyihin masuu ka baaba-a aada u mahadsan tahay horta intaan taa ka jawaabin waxaan sheegi lahaa tajribadeyda anoo dhallinyarada uga faa'iideynaya waqtigan aad ugu yeeray jaamacadahan hadda aad dhiganaysaan markaan dhiganaynay oo ardada la ahaa dadka qaar waan sheekaysan jiray sheeko wadaagaan ahay xulumkoodana way sheegi jireen waxaan idinka maqnaati kacayaa raggaasi waxay ay niyeysnaayeen badankooda way gaadeen maanta soo mayna garan waa bishaaro marka waa taas wax yaraan rabay inaan sheego waxaan kusoo celinayaa arrinta uu dadka sheekhu sheegay soomaalidu waxay tidhaahdaa awooddu waa duqowdaa laakiin hawadu waa soo dhalinyarowdaa sax sax waxaa laga yaabaa marka markaan dhalinyarada ahaa wixii aan ku fakari jiray hadda wax ka badan inaan ku fakaro oo xulun ka weyn leeyahay wallahu aclam waatay baaraka allahu fiik aad baad umahadsan tahay guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhalinyarada maanta barnaamijkeena oo xiise gaara xambaarsanaa toddobaadkan waxaa igala qayb galay mahad ballaaran ha ka gaadhee waxaa ugu madaxweynaa martida barnaamijka fadiilatu sheekh doctor axmed deeli oo martidii koowaad inoo ahaa ee barnaamijka dhalinyaro aqoon-yahana ayaa inagala qayb galay iyagana kamid ah aqoon-yahanada wax ku bartay dalkani suudaan caasimadiisa khartuum cabaas cabdallah محمد عباس عبد ناصر أحمد ساهد محمد عيسى عبد الفتاح أحمد محمد داق iyo عبد الفتاح kale dhamaanteen isku duuban aniga Cabdi Kaamil Yusuf barnaamijkiina socodsiinay kama tagi doono cameraman Abbas waa cameraman Ammar تاج الدين iyo saaxiibkii mukhrij Yahya Al-Walid iyo Umar Al-Jacli Maxamed Yusuf Maxamed bahdii barnaamijka isku duuban tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kala waxaynu idinkaga tegaynaa fi amaan illaahi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام ورحمة في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى